wejiga labaad ee shirka wada tashiga madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kaas oo socday muddo 5 bari ah. shir madaxeedkan oo isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 8 qodob oo ay ugu muhiimsan tahay in 15 bisha soo socota magaalada Dhuusamareeb loo madlay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka kaas oo lagu go'aamin doono nooca doorasho ee dalkan ka dhacaysa iyo in doorashada dalka 2021 ay ku dhacdo waqtigeeda. waxaa shirku adkeeyay midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. lambar 2 shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada. shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhamaystirka deyn cafinta Soomaaliya. madaxdu waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonto waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay. madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka guddigaas oo ka soo baaraandegi doona talooyin la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug 15 bisha August 2020 si loo dhameystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. shirku waxa uu u mahadceliyay dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ee u sameeyeen madaxda iyo wufuudda Soomaaliyeed ee ka soo qayb madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo khudbad ka jeediyay xiritaanka shirkan 5 bari uga socday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada magaalada Dhuusamareeb ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay martigelinta labada shir ee magaalada Dhuusamareeb ay martigelisay isla markaana ay u diyaar garoobayaan shirka 15 bisha Agost loo madlay in la isugu yimaado. sharaf bay u tahay reer Galmudug inaad ku aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gobasha Soomaaliyeed dhigaan inaad ka aqbasheen sharaf gaar ah u tahay meel walba ay joogaan waa ogi madaxweyne iyo marweyn shirkan amniyadii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda Soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday waana hortiina laga aqriyay iyadoo lagu cabiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo. waxaan ku qanacsanahay inay madaxdu fakartay dadaashay la isxilqaamay laga soo baxay mas'uuliyadii iyo waajibaadkii ummadda Soomaaliyeed ka sugaysay intii talka geysatay intii tilmaan fiican ka geysatay intii dadaal ku beerisay oo madcelinayna waxaan aaminsanahay marihii laga sugayay iyo waqtigii la joogay iyo xaaladii kala guurka ee dalku uu galayo marihii ku habboonaa ama aragtidii ku habbooneed in la isku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaana aan ka rajaynayno inay ka sii socoto ayadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno. madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya oo dhankooda khudbada ka jeediyay xiritaanka wejiga labaad ee shirka wada tashiga ayaa dhankooda booriyay qodobadii lagu heshiiyay iyo in dalkan ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booriyay qodobadii laga wada hadlayay iyo sida madaxda Soomaaliyeed ay isugu tanaasuleen muddadii ay shirka ku jireen. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegaysi isu tanaasul kulligeenan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed marna shirkani ma aanay ka soo noqon wax dhib ah inkastoo dadku ay walwalsan
dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmahaas qabsano wada shaqayno ka saarna marxaladda dalkeena uu ku jiro si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalka u horseeday midnimo iyo barwaaqo. maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo gunaanadkii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la isku tanaasulo isla markaana la dhowro sharciga ay ku heshiiyeen ummadda Soomaaliyeed. haddaan isku qaadano iyo haddaan isku tanaasulo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxaan la qalbi jabin مسؤوليتي بس يسرع فنهم وهنكفر لنا بنت البيوت وهنكفر لنا بنت الشخصية احنا كلنا كلنا لنا كتبت دستورتي هي شروعنا الفريون في مدينة لها هي الظروف الجسد صادق سعيد نور قلمدوك تي في دوسة مريب.